السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وحبايبي في الله walaalkiina Axmed iyo muuqaal cusub marka muuqaalkan caadaha wuxuu raacsan yahay cashirka oo hore u sharaxnay oo ah sidee YouTuber ku noqonaysaa ama sidoo kale sidee u baranaysaa video editing sidoo kale account YouTube oo samaysanaysaa marka hadda cashirka hore aad daawanin waa kana oo ku baranaysa sidee YouTube u samaysanaysaa account magac u bedelaysaa sawir u saaraysaa waxaasi dhan ayaan isla aragnay iyo sidoo kale waxaan isla aragnay cashirka soo dhaafay barnaamijka amaanta ku shaqayn doono sidee usoo dejinaysaa ama habkaa usoo dejinaysid marka haddaa videogaas aad daawan uu ku dhaafay linkiga insha allah waxaan ku dhigi doonaa videoga ama boxiga wax lagu sharaxo hoos ayaan ku dhigi doonaa ama commentiga ugu horeeya inaan kugu dhaafo ayaan isku daya insha allah marka yaan warka idinkugu dheerayn videoga ayaan usii gudubno ama computerga usii gudubno sidaan iskula aragno barnaamijka sideen ugu shaqaynaynaa videoga sideen u jaraynaa daawasho wacan muuqaalkii hore waxaan isla aragnay sida barnaamijka aan usoo dejinayno marka haddaa daawan muuqaalka lasoo dhaafay insha allah linkiga halkaanaan kuu dhigi doonaa halkaan ku dhufo sidaa u daawad muuqaalkaas markuu barnaamijka noo soo degay mouska dhinaca bidix hal jeer aan ku dhufanaynaa halkaan marka in yaraan sugaynaa ilaa barnaamijka nooga soo kaco marka adiga shaashada kuu soo bixaysa oo kaa dalbanaysa yes ama no waxaad dhehaysaa yes ina aan computerka aan ku shuban doonaa kadib sidaan uu kusoo saaraa waxaad dalbanaysaa adiga luqada aad doonaysid ama luqada isticmaalaysa aad doonaysid waxaan dhahaynaa luqad waxaan ka dhigaynaa hadda luqada ingiriisiga kadib waxaan dhahaynaa okay kadib waxaad dhahaysaa kale adiga next halkaan oo ogolaanaysaa calaamad adiga meesha saaraysaa kadib waxaad dhahaysaa next sidoo kale next meesha uu ku dhigaayo barnaamijkan ama feelka oo barnaamijku saf garanaya waa kan uma baahnid inaad bedesho waxaad dhahaysaa kale adiga next aad dhahaysaa next in yaraa sugaysaa ilaa kan ka dhamaado marka hadda barnaamijka cad ahaan wuu noo dhamaaday in yaraa sugaynaa ilaa uu ka dhamaado kadib waxaad dhahaysaa next marka hadda waxaad dhahaysaa keli finish hadda caadi ahaan barnaamijkeena computerka uu noogu degay maadaama finish aan taabanay wuu dhamaaday barnaamij computerka uu degay marka haddaa rabtid hadda barnaamijka inaad computerka soo saartid keyboardkaada waxaa ka taabanaysaa calaamada windows oo ah calaamadan haddaa keyboardka taaban halkaan keli ayaa tagaysaa hal maraa ku dhufanaysaa mouska dhinaca bidix markaa ku dhufto waxaa qoraysaa LE yani Lightworks aa qoraysaa ama LE aa qoraysaa halkaan ku qoray markuu sidan kugu soo baxo hal mar keli ayaa ku dhufanaysaa marka hadda barnaamijku isoo kicinayaa ama wuu daarmoyaa markuu barnaamijka isoo kiciyo sidaan kugu soo baxa ama pageka ugu horeeyo oo barnaamijka waa sidaan hadduu sidaan kugu soo bixin barnaamijka hore way ugu dogsanaa marka waa masaxay saan idinka idin tusiyo maadaama delete gareey barnaamijka mar kale aan ku shubay ima weydiinin inaan geliyo email ama inaan geliyo password hadduu ku weydiiyo email ama password waa meel fudud aad qoraysa keli register ama isqor markaa isqortid waa wuxuu ku siinaa email iyo password isticmaali kartid emailkaada aduu yahay gmail ama hotmail kaas ayaa ku isticmaali kartaa sidoo kale barnaamijka waa free qaybta freega ayaad isticmaalayna marka qaybta lacagta uma baahni sababtoo ah qaybtan ayaa wax walba qaban karto marka aan hore usii galno marka waxaad taabanaysaa keli haddaa barnaamijka inaad ku shaqayso aad doonaysid create a new project marka mashruuc cusub halkaan ii furo ama ii daar hadda halkaan ku dhufto marka mashruucaada magacu yeel waxaan dhahaynaa test adiga magaca doonaysa ka dhigi karta hadda adiga magac muuqaal aad samaynayso oo YouTube ku samaynaysid muuqaalka magaciisa qoraysaa waxaa rabtid ayaa qor karta halkaan magaca aday kugu xiran tahay marka halkaan waxaad dooranaysaa filmka aad doonaysid ama seerta inuu kusoo baxo videogaada ha iska mashquulin haddaa kuwaan fahmayn waxaad taabanaysaa keli meesha qoran tahay auto ama automatic kadib waxaan dhahaynaa create markaan create dhahno hadda mashruucaada hore waa samaysatay mashruuca sidaan kugu soo baxay markuu sidaan kugu soo baxo mashruucaadi isku day mar walba muuqaalada aad diyaarinaysid hadduu muuqaal yahay inaa hal folder iskugu keentid haddana folderkaan iskugu keenay inta muuqaalan doonay aan ku shaqeeyo codkii video kulli hal meel aan iskugu keenay marka hadda waxaa rabtaa marka inaa codkii iyo waxa kuu diyaarsan inaad soo gelisid projectigaada ama mashruucaadi muuqaalkaa soo jiidaysaa halkaan keli ayaa ku daynaysaa
marka hadda saa ujeediin muuqaalkaada wuxuu kuu soo galay mashruucaada si usoo jiidaysaa mouska dhinaca bidix muuqaalka rabtaa ku dhufanaysaa kadib waa kusoo jiidaysaa ilaa meesha aad doonaysid okay mashruucina usoo laabano marka uusan kugu soo baxo adiga waxaad taabanaysaa keli meesha qoran tahay edit ama bedel hadaa meeshaan taawad waxa kusoo baxaya mashruucaada meesha uu shaqaynaysid meesha mashruucaada ka daawanaysid sidoo kale meesha aa uu jarjaraysid aa ku hagaajinaysid iyo halkaan inta mashruuc ama inta video aa soo gelisay halkaan ay kugu soo muuqan hadduu maqal yahay hadduu muuqaal yahay marka hadaa rabtid inaa maqalkan ama muuqaalkan aa hagaajisid waa sidoo kale mouska qabanaysaa waa soo jiidaysaa ilaa halkaan aa ku daynaysaa markaad halkaan la soco haddana sida ujeeda muuqaalka halkaan ka daawan kartaa codkan xiriirna soo noo dhibin muuqaalka halkaan ka daawan kartaa iyo sidoo kale halkaan hadaa aragti meel qoran tahay plus iyo minus marka zoom in hadaa muuqaalka si fiican ama meel fiican ka jaraysid ama si fiican u hagaajid aad doonaysid zoom in isticmaali kartaa iyo sidoo kale hadduu muuqaalka uu aad u dheer yahay orad inaad meel kale aa aragtid waxaad taabanaysaa zoom out tani waa mid good marka halkaana sidoo kale meesha qoran tahay v1 iyo sidoo kale a1 a2 a1 a2 gan waa codkii kana sidoo kale waa videoga marka hadaa rabtid inaad videoga iyo codka aa kala qaadid ama sidoo kale codka inaad ka masaxid videoga videoga aa hal mar ku dhufanaysaa meeshaan marka soo ujeeda halkaan hadda wuu isxiray muuqaalka keli ama maqalka keli caadi u dhaqaajin karaa ama codka caadi u dhaqaajin karaa saa ujeediin hadaa rabo inaan codkan asiga dhanaa masaxo waxaan taabanaa keli dhinaca midig waxaan dhahaa delete iga masax marka saa ujeediin waxaan meesha ku hayaa keli videoga keli ayaa meesha ku hayaa okay marka hadda meesha marka la ii fursan ugu shaqeeyo videoga soo kale aad u dheer yahay ima qanacinin for example ahaan ama wax ziyaada ku jiro inaan wax ka jiraan rabaa maxaan sameynaa meesha rabta ajirta aa ku aadinaysaa hadda ilaa intaan dambe inaan jiraan rabaa marka waxaan taabanaa halkaana imaanaysaa keli waxaad dhahaysaa jar haddaan halkaan taabto wuxuu jaraa intaanu jaray saa ujeediin marka waxaan dhahaynaa control z dib usoo laabo mar kale marka hadda waxaan rabaa mar kale inaan inta jaro farqiga ama meel farq u dhexeeyo kanna sidoo kale waxaa ku jari kartaa laakiin farqiga u dhexeeya kan iyo kan haddaan taabto automatic wax walba oo dhinaca midig ka jiro wuu qaadaa marka hadduu halkaan muuqaal kale ku yaalo wax kale ku yaalo automatic waxaas dhan wuu israacsiinaa marka isku day inaad isticmaashid kan waxaa rabtid dalbo kadib kan ku dhufo wuu ku jaray muuqaalkaada hadda waa kan intaan uu kaa qaaday marka waxaa ku taabanaysaa kale dhinaca midigaa taabanaysa waxaa dhahaysaa delete waa masaxday okay hadda muuqaalka meeshaan uu noo yaalaa marka waxaan rabaa inaan muuqaal kale aan kusoo daro videogan ama mashruucan ku shaqeynayo mar kale meeshaan kusoo laabana waxaan dhahaa waxaan inaan kusoo daro videogan sidoo kale waa soo jiidaysaa halkaan aa ku daynaysaa sida ujeedin wuu soo galay marka haddaan rabo kan inaan halkaan keeno waxaan dhahaa mar kale ii soo jiid halkaan ii keen isa sidii aan sameynaynaa codka maraw inaan isticmaalo marka waxaan saari doonaa adiga muusiga meesha saaraa marka codka kan ka ama videoga xir kadib codka waxaad dhahaysaa codkaan cunaynaa waxaan dhahaynaa delete marka soo ujeedaan codka waa ka saaray marka videoga kanna waa mid kan kalena waa mid kale okay marka video saddexaad aan kusoo daraayo sidoo kale waxaan dhahaa kan iigu soo dar ii soo jiid halkaan ii keen saan shaqa iskugu dheerayn video kale halkaan kusoo dar 4 video a meesha ii yaalo kan marka halkaan ii keen kan kalena sidoo kale asigana soo deji marka maadaama uu kan xiran yahay hadda codka caadi ayaan u masaxi karaa codkaana sidoo kale masax haddaan kan xirin waxaa hamar diiwaan usoo laabanaynaa soo laabashada waxaa taabanaysaa control z controlka oo keyboardka ah iyo z ay taabanaysaa haddaan videogan aan xirin uu furan yahay aan taabto keli delete aan taab ama muuqaalka imaado ama codka imaado aan dhaha delete waxaa dhan ayaa isla baxaayo codkii wuu baxay videoga wuu baxay saas daraadeeda aa video u xiraysaa marka isku day inaad videoga xirtid dib usoo laabo videoga iga xir marka hadda waxaan masaxaynaa codkaan iga masax iyo soo kale codkaan iga masax haddaa videogan ujeediin tartiibuu u socdaa marka waxaan rabaa aniga inaan videoga aan ka dhigo video caadi ahaan oo degdeg ama speed leh marka speedkiisa aan xoojiyaadaan rabo mar kale meesha videogan furaa keli waxaan taabanaa dhinaca midigan ku dhufanaa mar kale videoga aad dalbanaysaa horta kow dhinaca midigan ku dhufanaysaa waxaad dhahaysaa speed meesha ku qoran tahay marka hadda 100% waxaan ka dhigaa aniga marka 100% 200 haddaa rabtid qoran karto waxaad dhahaysaa 100% 200
kadib waxaad dhehaysaa do it ama ka dhig. Soo ujeedaan videoga wuu yaraaday. Haddaan videoga soo celiyo caadi ahaan speed yar ayuu noqday. Markaan dhammayno ayaan isla arki doonaa. Okay, marka videoga soo kale kan ku dheji, kan kale soo kale u dhaweey. Okay, iska ilaali inaad videoga adiga geesaha haddaa geeskan qabato video aa yaraanayo. Marka isku day mar walba inaad videoga aad ka qabatid halkan. Hadduu videoga yar yahay aad dareemaysid soo kale zoom in dhees uu kugu weynaado aad caadi u qaadi kartid. Kan halkan u soco caadi u qaad. Okay, marka videogan hadda oo sida noo ah haddaan rabo inaan dulshiisa aan video dul saaro ama markuu videogan socdo inuu dushiisa video kale soo fuulo, waxaad taabanaysaa kali dhinaca midig. waxaad dhehaysaa tracks add video ama video ku soo dar. haddaan dhaho video ku soo dar soo ujeedin halkan video kale ayaa isfuray ama meel kale video aan saarayo. haddaan kan dul saaro soo ujeedin kan hoos markuu socdo oo halkaas soo gaaro kadib isla markii kan kale ayaa qabsanayo ama kan kale soo fuulay meesha. soo ujeedin kan waa videogii laakiin haddaan ka qaado mid kale hoos yaalo, laakiin haddaan kan aan dul saaro automatic kan kale ayuu qariyay. marka hadda anaga kaas uma baahnaa sameeyno. sidoo kale video waxaa muhiim ah markaa sameynaysa hagaajinaysa sidoo kale colorka inaad hagaajiso videoga. colorka videoga marka hadda waxaan hagaajinaynaa colorka videogan. Okay, kana hagaajinaynaa colorka videogan. marka colorka hagaajinaysa halkan kaliya ayaa ku dhufanaysa meesha edit dhinaceeda midig kan ku soo baxayo ayaa ku dhufanaysaa. marka waxa ku soo baxay colorka aad hagaajin kartid. halkan aad ka dooranaysaa colorka adaarad casaan ka dhigtid. soo ujeedin aday ku xiran tahay colorka nooca sameynaysid. haddana waxaan ku tusinayaa kaliya sidee u isticmaali kartaa iyo soo sameynaysaa. sidaan aan ka dhigno for example ahaan intana in yar aan sidaan ka dhigno. soo ujeedin halkan dhan colorka si fiican u xukun kartaa. marka aday ku xiran tahay mar walba muuqaalka sameynaysid ama videoga aad sameynaysid sidee ku rabtaa inuu ku ahaado. good, intaan waa dhammaynay. sidoo kale waxaa u baahan tahay mar walba inaad videoga aad kusoo dartid cod inaad raacsisid ama cod inaad kusoo dartid. markaad joogto meesha adiga oo colorka waxaad taabanaysaa calaamadan plus meesha ku qoran tahay aad ku dhufanaysaa. kadib waxaad dhehaysaa title ku soo dar. laba jeer ku dhufo sidaan kugu soo baxay. marka titlekaada meesha artaa kani kartaa halkan fursad waxaan keenaa magaca arabta ku qoraysaa. hadda waxaan dhahaa ku soo may kulli iga masax ku soo wow ku soo dhawaaw. halkan ii soo jiid halkan ii dhig qoraalka ama farta waa qurxin kartaa. hadda aragto waxaa ka dhigaysaa nooca adiga ku qancinayo ayaa ka dalban kartaa meesha. markaan soo galno meesha front ay qoran tahay halkan aad ka dalbanaysaa. sidoo kale colorka waa bedeli kartaa. soo ujeedin haddaan dib usoo laabano cabirka ama si uu weynaanayo si uu yaraanayo aday ku xiran tahay. sidoo kale meesha ayaa ka bedeli kartaa. iyo haddaad doonaysa effect markuu soo galaayo inuu sidaan ku soo galo haddana sidaan uu ku baxo aan aragno sidaan inuu isqoritaan oo kale. mar soo bilaabo videoga. soo ujeedin qoraal oo qormaayo oo kale inuu kugu soo baxo. markuu baxayana in yar ciyuhu ku baxo waxaa ku bixinaysaa no effect. okay, shadow ma saaraysaa adiga hoos hadaa saarayso kale hoos waa saari kartaa videoga. soo ujeedin marka adiga muuqaalka adiga iyo maskaxdaada ka shaqaysay fikradda jeceshahay iyo sida jeceshahay ayaa ka dhigi kartaa mar walbo. okay, marka hadda muuqaalka waa hagaajinay. sidoo kale muuqaalo badan aan isku xirnay cod aan saarnay cafwan waxaan saarnay qoraalaan ku qornay meesha. qoraalka sidoo kale waa qurxinay colorkan aan ka dhignay. marka aday ku xiran tahay mar walba qoraalka saa u dhigaysid. sidoo kale qoraal kale oo ku dari kartaa mar kale. halkaan aad ku qoraysaa wax kale ama halkaan haddaan dhaho kusoo dhawaaw halkaan imaa waxaan dhahaynaa youtube-kayga
waa iska qoraa muhiim ma aha inuu sax yahay inuu qalad yahay marka adiga qoraalka rabtid meesha qori kartaa waxaan dhahaynaa waxaa ka dhigaysaa noocan halkan ii keen adiga tartiibkaada markaa rabtid waxaa rabtid ama saartid hadaa u qortid si kale ayuu noqonaa marka hadda intaan waa hagaajinay sidoo kale videogan keli aan rabo inaan kalarka aan ka bedelo haddaa rabtid inaad mid kale kalarka bedeshid meesha agtiisa imaanaysaa keli videoga imaanaysaa kalarkiisa kan waa nooc kale marka halka waxaan dhahaa kan caadi ka ahaado kan oo isbidkan ka dhigay kalarkiisa in yar buluug soo geli marka aniga muuqaalkan aniga muhiim ima aha maanta inaad si fiican video u qurxisid waxaa muhiim ah maanta inaad garatid ama inaad ogaatid videoga sidee u hagaajinaysaa ama sidee u jarjaraysaa marka taas aan ku bara aniga halkay galaysaa maxaa sameynaysaa marka dhawaada adiga kalar casaan u baahan tahay ama kalar buluug u baahan tahay ama kalar jaalo u baahan tahay tartiibka adiga waxaa rabtid samayso aniga waxaa muhiim ah kali inaad barnaamijka aa fahantid sida u isticmaalaysaa marka kalarka iyo qoraalka oo noo daran ama muhiim noo ah halkaasaan ka bedelnay kadib waxaan usoo laabanaynaa meesha qoran tahay edit ama ku shaqeyn marka hadda muuqaalkayga diyaar waayo hadduu muuqaalkaada saacad yahay ama 2 saac yahay ama 10 daqiiqo yahay taas aday kugu xiran tahay sawir oo ahaado marka hadda waxaan kusoo daraynaa cod aan kusoo daraynaa ama music aan kusoo daraynaa oon videoga saarayno marka hadda muuqaalka aan rabo ama codka aan rabo inaan saaro ama musiga aan rabo inaan saaro aan kasoo baxsanaa folderka meeshaan dhigay for example ahaan muuqaalkan ayaan soo qaadanaynaa halkaan ku daynaysaa soo ujeedin muuqaalka kan ugu soo ama codka kan ugu soo baxay mugdi waayo ama madow ayuu noqday marka aday kugu xiran tahay mar walbo sida isticmaalis barnaamijka haddaan ku dhufto halkaan video kali isoo saar ama haddaan ku dhufto halkaan cod kali isoo saar marka adiga ayaa kala saaran kartaa halkaan waxaan dhahay kulli isoo saar cod iyo video marka hadda adiga ku shaqeynaysid dhowr video aa soo gelisid soo kale cod ama maqal aa soo gelisid ama mp3 waxaa soo gelisid wuu isku qasmi karaa waxaa taabanaysaa haddaa rabtid only midkuu yahay codka keli aa soo qaadanaysa marka codka soo jiid soo ujeedin hoos ayuu imaanaa marka video meeshiisa magalaya sababto ah waa cod keli marka ilaa halkaan aan keenaa marka ilaa meesha aan rabo aan keeno waxaan dhahaa intaan jar hadda intaan uu jaray soo ujeedin marka waxaan dhahaa dhinaca midig taabo delete marka hadda maxaan sameeyay video aan hagaajiyay qoraal aan ku qoray sidoo kale maxaa la adiga dhowr video isku xiray intaan rabaa ka jaray intaan rabaa deeyay video aan speed geliyay iyo sidoo kale cod aan dul saaray intaas caadahan u baahan tahay hadda video hagaajinaysid aad jarjaraysid inta kale marka tartiib hal ay u baran kartaa inaad kalarka si fiican u qurxisid waxaan aad samaysid taas adiga iyo dooqaada adiga iyo aragtida ay ku xiran tahay marka aniga kalaraan sameeyay waxa dhaqatan adiga ku qancinin oo aniga i qanciyo ama mid inuu adiga ku qanciyo aniga u qancinin saas daraadeed intaan waa sameeyay marka xartada videoga aa hagaajisay in aad computerkaada ku save garaysatid maxaa sameynaysaa ama halkay taabanaysaa waxaan ku dhufanaynaa videoga ay imaanaysa halkan waxaa dhigaysaa dhinaca midig ku dhufo kadib waxaa dhigaysaa export markaa export ahayd waxaa dalbanaysaa keli meesha qoran tahay youtube ma ahan inaa youtube-ka aa gelisid markii laakiin wuxuu kuu soo saaraa adiga video aa youtube gelin karta ama video mp4 waxaas ah kuwaani kale ma dalban kartid sababtoo ah barnaamijka hadduu lacag ama baro hadduu ku yahay oo lacag ku gadatay waxaan kale isticmaali kartaa laakiin intaan caadi ahaan anaga inafay nagu tahay waa nagu filan tahay shaqada aan ku qabanayno marka youtube aan dalbanaa markaan youtube dalbado waxaa dhahaysaa keli start kuwaan sidoo kale iska daa uma baahnid kana sidoo kale waxaa ugu weyn 720 ugu weyn kuwa kale waxaa u baahan tahay inaad bro isticmaashid 720 sidoo kale aragtida 720 way fiican tahay wax xun ma ahan marka waxaan dhahaynaa keli select afwan start markaan start taawano halkaan ayuu hadda videoga noogu soo degaa ama uu ku bilaabanaa inuu soo dego sidoo kale meeshuu ku save garaynayo halkaan waaye marka computerkaada aa gashid user aa galaysaa pc kadib document marka document gudaheeda ayaa ka helaysaa laakiin waxaas asal ka doona insha allah
marka hadda muuqaalka aan sameynaynay wuu noo dhamaaday, wuu noo safgaraysmay. waxaa u baahan tahay keli inaa halkan ku dhufatid sa u start videoga. haddaa halkan ku dhufanina waxaa aadaysaa keli meesha qoran tahay document, computerkaada ka aadaysaa, kadib magacan ayaa jirnaysa oo qoran tahay number 3. haddaan ku dhufto sidan ayuu noogu soo saaraa, waa kan videoga. marka waxaa dhahaysaa videogan ii soo qaad, ii soo copy garay. waxaan ku save garaynaynaa meesha oo feelashay noo yaalo. marka videoga waa kan. haddaan videoga daaro sa ujeediin muusigaa saaran. kan ugu horeeyo kalarkiisa waa nooc kale. marka qoraalka sidoo kale waxaa ka dhigi kartaa inuu qoraalka ka baxo ama qoraalka inaa ka saartid marka adiga oo videoga muddo yar kadib. marka meesha oo ka hagaajinay effect ay ka hagaajinaysaa oo laaban doona insha Allah. kan waxaan ka bedel malaha, keli video aan ku xirnay. sidoo kale music sidoo kale kulli way saaran yihiin. kan aan ka dhigno sidoo kale speedka ama inuu ciyo ordsiyo ama u boosiyo sidoo kale waa kan. marka hadaan barnaamijka usoo laabano oo meesha qoraalka haddaa idin tusinaya aan dhahay qoraalka waa ka saar kartaa daaratid. waxaa kusoo laabanaysa sidoo kale meesha qoraalka kusoo laabanaysaa qoraalkaa qortay oo kan ah. haddaan imaanaa meesha effect waxaa dhahan kartaa qoraalka inuu baxaan rabaa muddo kadib. sidoo kale qoraalkan kale waxaan rabaa inuu baxo muddo kadib. hoos soo degaysaa qoraalka oo kan ah kusoo dhawaa kanan ku qoray. kadib waxaad doonaysaa effect out inuu ahaado muddo kadib, inuu caadi iskaga baxo. marka hadda waxaan isla baranaysaa hore kuu sheegay aas-aaska barnaamijka u isticmaalaysaa, sida muuqaal ugu hagaajinaysaa, u jaraysaa. marka muuqaal waa soo gelisay, waa jartay, cod aa saartay, kalarkaa ka bedeshay, qoraal aa qortay. intaasa u baahan tahay caadi ahaan haddaa muuqaal ku shaqaynaysid ama hagaajinaysid. marka muuqaalkeena ama sharaxeena maanta meesha ayuu noogu ekaa. muuqaalkeena maanta meesha ayuu noogu ekaa. marka soo arteen videoga aad ayuu u dheeraaday. dhirirkan waxaa keenay waxaan isku dayay qadar al-imkaan inuu qofka si fiican u fahmo from A to Z. hore uu sheegay tartiib inaan videoga soo geliyo. markaan soo geliyo video aan jiro, haddaan saarayo musica aan saaro, sidoo kale haddaan saarayo maxaa lahaa adiga sawir aan saaro, wax walbo aan samayn karo inaan sameeyo si tartiib ah aan ku sharxo. intaas ayaan isku dayay. marka waxaan rajayn lahaa inaan videoga ama muuqaalka maanta aa ka faa'iiday. haddaa ka faa'iiday videoga ha daawanin, ha ka tagin. waxaad samaynaysaa videoga dhinac kale ku furo, barnaamijka soo degso, baroway inaad video aa samaysid ama editing aa samaysid. waajib ma ah maanta inaad youtuber ahaatid ama inaad video youtube soo gelisid sida editing u samaysid. haddaa aabba tahay waxaa u baahan tahay gabadhaada oo maanta video ka duubtay inaad u hagaajisid. haddaa maanta aday wiil dhallinyaraa tahay, baarti aa samaystay, wax walba aa samaysateen, video editing waa u baahan tahay. familigaada ayaa meel u baxday ama meel isku raacdeen, video aa ka duubtay. marka videogii inaad hagaajisid ayaa doonaysaa. marka isku day inaad intaas aa samaysid. sidoo kale waxaa jiro dadka badanaa waxay haystaan telefoon computer. dad badanaa jiro oo haysanin ama gacantooda ku jirin. marka haddaa jeceshin sidoo kale inaan soo duubno ama aan soo diyaariyo cashir aan ka hadlayo keli video editing adigoo isticmaalaysid telefoonkaada, hoos igu soo qor. sidoo kale linkiyada waxaan isticmaalnay ama linkiga barnaamijka lagu soo dejinaya aan hor u sharxay. wax walba waxaa ka arkaysaa boxiga hoos ama meesha wax lagu sharxo, ama sidoo kale commentiga ugu horeeyo ayaan soo saari doonaa insha Allah. marka cashirkeena maanta meesha uu ekaa. walaalkiina Axmed waa ina muuqaal cusub. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.